السلام عليكم. صباح وناكسن سأوجدان بمانتا waxaan rabaa inaan idin la wadaago kow horta waxaan rabaa inaan u tacsiyo shalay arintii foolxumada ahayd oo dhacday qaraxa ahaa oo ay ku nafwaayeen 6 qof dad badan ay ku dhaawacmeen runtii qaraxyadan waxay noqdeen wax soo noqnoqda oo aan dhamaan saas darteed yaan maanta waxaan u cilaaminayaa ummadda Soomaaliyeed guud ahaan in dalku uu ku jiro xaalad dagaal uu ku jiro xaaladan dagaalka ahna aysan noqon doonin hal dhinac oo kaliya dagaalkan uu noqon doono dagaal haduu Ilaahay yiraahdo xaq ah bacdama aan xaq ku socono Ilaahay inuu nala jiri doono insha Allah maxaa yeelay anagu waxa naga go'an in ummadda Soomaaliyeed badbaadadeedii aan ka shaqeeyno iyo horumarkeeda si qof walba uu nolol fiican u helo yaa naga go'an waxa qaybaha kala duwan maxaan ku raahdaa amniga ciidamada qalabka sida qof walba oo ka tirsan ciidamada qalabka sida waxaan amar ku siinay inay heegan galaan oo ay qayb ka qaataan nabadeynta runtii magaalada Muqdisho koow iyo guud ahaan gobolada dalka ay qayb weyn ka qaataan maantana runtii isbedel baa dhacay oo waxa yimid taliyaal cusub haday noqoto xooga ciidamada qalabka sida gaar ahaan xooga taliska maxaan ku raahdaa nabad sugidda iyo booliiska iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed waxaan rabnaa inay la shaqeeyaan ciidamadooda qalabka sida oo runtii u heelan inay keenaan ammaanka magaaladan si toos ugu soo celiyaan si noloshii ay normal ugu soo noqoto caruurtooda ay iskuul u aadaan cid alla cidii adduunka nooga imaanaysa wax noogu darsanaysana aysan marnaba ka walwalin nabadgelyadooda waxaan rabaa inaan baaq aan u diro cafis ah dhalinyarada runtii la waalay oo shabaabka ay maxaan ku raadaha ay waaleen oo ay khaladka uga sheegeen dalkan waxa uu yahay iyo diinteena maxaan ku raahdaa muqaddaska ah inay noo soo noqdaan oo ay qayb ka noqdaan horumarka dalka waxaan ku soo dhaweynaynaa gacmo furan waxaan dajinaynaa meel waxaan siinaynaa waxbarasho waxaan siinaynaa shaqooyin haddii si khalad wax loogu sheegay dalkan waa dalkoodii annaga waa caruurteenni weeye waxaa laga rabaa in aysan dadkooda laynin aysan hantida dadkooda aysan burburin waxaan ugu baaqaynaa muddo 60 casho ah inay cafis aan siinay ay noo yimaadaan gacmo furan aan ku soo dhaweyno hubka ay ummadooda ku leynayaanna ay iska dhigaan shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay waajib wuxuu idinka saaran yahay inaad nagala shaqeysaan sidii aad weligiiba aad ahaydeen sidii magaaladan ay ammaankeedu uu ku soo noqon lahaa oo aad noo sheegtaan meelaha uu dhibka ka jiro iyo cidda Soomaaliya cidda magaaladan iyo dalka guud ahaan ku haysa xasilooni la'aanta ku haysa oo aad u istaagtaan nabadgelyada maxaa yeelay nabadgelyadu waa nolol weeye haddaad noo sheegtaan meesha ay wax ka jiraan iyo dadka dhibka wada ciidamada qalabka sida waxay u taagan yihiin oo ay diyaar u yihiin inay magaaladan ay xasiloonidii iyo nabadeynteedii ay ku soo celiyaan si ay u noqoto magaalooyinka kale oo adduunka ka jira waxaan rabaa ugu dambeyn dawladdaani waxay sheegtay 3 arrimood oo muhiim ah oo aan ka shaqeynayno oo qayb ka ah la dagaalanka aan ka hadla hadda waxa weeye kow nabadiidka inaan la dagaalno shabaabka inaan la dagaalno iyo qof walba oo iyo cid walba iyo urur walba oo runtii ka soo horjeeda qaranimada Soomaaliyeed inaan la dagaalno tan labaad inaan la dagaalno musuqmaasuqa maxaa yeelay musuqmaasuqa iyo shabaabku anagu waxba nooguma kala duwana waa isku nooc midna dadka horu u laayaa midna musuqmaasuqna dawladda iyo dadka tartiibu maxaan ku raahdaa u dumiyaa tan saddexaad inaan la dagaalno faqriga dadkeenu waa babacsan yihiin dhalinyarada shaqo la'aan badan yaa jirta oo baahsan waxaan doonaynaa in Soomaaliya ay ku soo noqoto siday ay ahaan jirtay oo ah dhalinyaradu inay shaqo helaan dadku inay noolaadaan nabadgelyo buuxa inay timaado saddexdaas arrimood waxaan doonaynaa shacabka Soomaaliyeed inay nagala shaqeeyaan marka la dagaalanka nabadiidka argixisada la dagaalanka musuqmaasuqa dawladdu waxaad haysataan runtii priority-geeda ama muhiimadeeda koowaad ay tahay
inay keento dawlad wanaag ee keento oo musuqmaasuq la dagaasho shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay idinkuna nagala shaqeeya qaybta faqriga way imaanaysaa haddii la keeno haddii lala dagaalo nabadgelyo xumad haddii lala dagaalo oo shabaabka lala dagaalo cid walba oo runtii Soomaaliya dhibkeeda ka shaqeynaysa musuqmaasuqna lala dagaalo waxa weeye faqriga waa laga baxayaa waa mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh